Soomaaliyay waxaan hordhac u ahay riwaayadii Dibandaabyo ee uu matalayay Ambassador Mahiga miraha aan ka soo qabto inkastoonu dilannahay inkastoonu daryeel jirin inkastoon dayacannahay dadnimadu nagama tagin Soomaalidu ma dabar go'in dun xariir abaanahay waa codkii fanaanada caanka ah ee Saada Cali Warsama mirihii Abwaan Xasan Jilacow sheekadan waxa qoray Eedi waxaana idin jilaya kooxda Qayladaan waa isku dubaridkii Somali Radio iyo Amin Artist hadal badan haan ma buuxshee shakina kuma jiro Soomaaliya Soomaali baale aan idinkaga dhaxbaxo riwaayadii Dibandaabyada Mahiga iyo kooxdii Qayladaan waa Zahra Cali Yukay iyo Somali Radio oo idin leh mahadsanidin anigu ageele ahna madaxweynaha Everland waliba cod aqlabiyada baarlamaanka Everland ugu doortay waxaan aad ugu faraxsanahay howlihii ii haray inaan guda galo bilowgoodii waxaan filayaa hadee ninkii qaabilsanaa arrimaha Soomaaliya UN wakiilka u ahaa Mr. Agostino Mahiga inaan arko bal si documentida Everland uu geeyo oo baarlamaanka Everland dib ugu dhiso oo guud loo dhiso maxaa la yiraahdaa wax walba oo aasaas u ah habsam socodka howlaha dowlad goboleedka Everland oo runtii u baahan ilaa budget aan qiyaasay ilaa $4 milyan كل واحد على كل برتاع الشيء يرجع يقدر وماش وحبي أضيق وحبو قاطع 50 كيس لقى قاطع 50% تيجي كن رنتي أي صود عيسى إيرلان آن بضبط وعاص. كانوا دلنا هاي إنكستون دريال شرين إنكستون ضيعنا غاي قدني ما دون قامتهجن Somali du madabar goy dul harira banay anadaga kuno daran doqon kayo geesiga tunkawa magacay waa Jimcaale waxaan ka socdaa maamulka Badland Mr. Agostino Mahiga maxaad anaga noo haysaa oo noogu dhagan tahay oo maamulka ay u aqoonsan laadahay maadaama aan nahay maamulka Badland Somalis, so much headache. Let me, my secretary, beautiful Somali girl, give me this file. Let me have a look for Badland. Oh, this is no entry zone. Badland belong to America. Your fish, your sea has been taken by America. Don't ask you people. You were no jinga sana. Where jinga ya wapi? You are so foolish. Your sea has been taken so long. So many years by Americans. This is a sea. Badland is belong to American land. Badland meel loo dhawaan karo ma ahan waxaa iska leh areadaas badda Soomaaliya iyo Amerikaanka iyo wadamada la shaqeysta ayaa gacan ku haya marka Badland kuma aqoonsana maamulkaagana ma aqoonsana marka aad iyo aad buu inaha arinta u diidan yahay sida ay ku leeyahay annagu haddaan nahay Badland mar walba waxaan u baahanaa la aqoonsado badayadana Mareykan iyo cid kale uma ogolin annagaana iskale waxaan ka codsanayaa qaramada midoobay inaad gaarsiin maamulka Badland in la aqoonsado oo badooda loo soo celiyo oo aqoonsi la siiyo Stop as are you telling is he telling me I should quarrel with donors especially with America who put me here and tell me to do what they wanted to do what this man is a foolish boy I have seen him tell him to get out my office you tell him now this is kwenda saka aad buu araysan yahay mudanuhu wuxuuna ku leeyahay xafiiska iga bax anigu lama murmaayo hay'adaha dhaqaalaha bixiya America iyo dalalkaas dhaqaalaha bixiya oo meesha nagu haya in la murmi karo ma haysa darteed waa arintaadii waad iska iloobaysaa sida ay nabadgelyo hadda waa baxaya laakiin waxaan ku sheegayaa in mar walba nala aqoonsan doono badana anagu aan leenahay inta aan leenahay aan badayada aan cid qaadin karin inta ana marka raalli baad adeegaan ورأي جوج ماشان
faa'iidii faa'iido maxay anigu waxaan ahay turjubaan ka shaqeeya xafiiskan wakiilka UN-kaas u fadhiya Soomaaliya Mr. Mahiga turjubaankiisana waa anigii ninka arbaba tahay waa madaxweynihii Everland runtii shaqana bilowna kulli telefishinka laga daawado umaleeyay adii laftaada soo maadaama aad odayga secretary xot adigu way iska badan yihiin bariyaan maamuladu marka wax badan baan aragnaa marka soo daadara wixii aan u sheegi lahaa anigu turjubaan baan ahay shaqo kale ma qaban karo waxna kuma dhimi karo waxna kuma kordhin karo maxaan u sheegay u sheeg shaqadiina waa la bilaabay telefishinka Soomaaliya waa laga daayay Everland shaqadeedii toos u wadaa waxayna hadda maartay baarlamaanka Everland already shaqadiisii uu guda galay noo geey wixii proposal noo hayeen noo weydii wixii sana ka qaato in oday waxa leedahay in oday wax fahmayo waliba oo defy to ogol Tell him welcome. This is Everland. I've been waiting for him so long. Hallelujah. Welcome, my brother. Shake me. Everland. Everland. mudana madaxweynaha Everland waxaan ku sheegayaa war farxad leh mudane Mahiga aad iyo aad buu ugu faraxsan yahay imaadka aad xafiiskan timid waxaad moodaa Everland inuu horay u ogaabaad moodaa una yaqiin wuuna aad buu ugu faraxsan yahay ana ku soo farkay okay waa fiican yahay odayga waa ana nin ku fahmay waa shaqada aad u yaqaano kala dhuftoorashada ogalde maxaa hadda jira wax weydii bal hadda waxa qorshaha ma jiraan miskar Everland has been blessed by Western people and also especially the president of Ethiopia Meles Zenawi very pleased and he should be very happy to see me today and also there is a budget warar wanaagsan ayaa ka imaanaya mudane Mr. Mahiga ku saabsan Everland halkan dad hore ka soo horeeyay meesha iyagoo waxba aan haysan bay ka tageen balse wuxuu leeyahay Everland aad baa micnaha loogu faraxsan yahay jiritaankeeda hataa Meles Zenawi oo ah Prime Ministerka Ethiopia aad buu arinta u taageersan yahay dhaqaalana waa loo hayaa ayuu leeyahay okay waa fiican yahay odayga waa ana nin ku fahmay waa shaqada aad u yaqaano kala dhuftoorashada ogalde maxaa hadda jira wax weydii bal hadda waxa qorshaha ma jiraan miskar they exactly the way I was expecting for him of course mimi nataka chakula kidogo chakula mazuri chakula yangu mimi nataka chakula mzee of course tell him he's a good man jakul wax la cuno oday waa fahma sortiisa waa sorti cuni jiray wala wixii soo sheegay jakula only he will get only 500,000 of course you go Everland and see my beautiful secretary Somali girl she will look after you and she will make you happy but only you will get 500 and I will get 205 very the other people we give 50s but because you Everland you have so many recommendation sasa wewe takuwa happy too we enda mahigowna daadanteenna ka bax dalkeennana dhaaf dadkeenna amaanoosi mahigowna daadanteenna ka bax dalkeennana dhaaf dadkeenna amaanoosi Who is this Mahiga? Is he a Somalian man? No. What is he then? He's from Tanzania. Are you kidding me? No, I'm not. It's true. How dare he try to make decisions for the Somalian government and the Somalian people and the Somalian country while he himself is not Somalian? Who gave him the right? I don't know. I'm sure.